xulka degmada Balcad ayaa xalayto la isugu yeeray xafiiska degmada Balcad si ay markaasi dib la isugu keeno mar kale waxayna maalinta Jimcaha la ciyaari doonaan Yakshiid kulamo tijaabo ay ciyaari doonaan maalmaha soo aadan xulka degmada Balcad wuxuuna mar aan gudoomiyaha waxaan ka weydiinay noo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay horumariyaan isboortiska degmada Balcad isboortiska degmada Balcad ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa iska kaashanayay xiriirka kubadda cagta degmada Balcad iyo sidoo kale maamulka degmada Balcad uu ka kooyahay gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur Qaasim Furdug maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa la sameeyay iskaashi ku aadan kubadda cagta si markaasi loo horumarin lahaa hanaanka iyo hab u socodka dhalinyarada si ay markaasi moraalkooda ugu dhismi lahaa waxay la ciyaari doonaan Yakshiid iyo sidoo kale Shibis labadaas kulan ay tijaabo ahaan u ciyaari doonaan wuxuuna gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada Balcad oo sheegay in ay si wadi doonaan tijaabooyinka ilaa iyo heer ay ka gaaraan in markaasi xulka uu noqdo mid markaasi la isu haleyn karo shirka ayaa lagu soo qaaday qodobo aad u dhowr ah ayagoona markaasi macallimiin iyo sidoo kale ciyaartooy halkaasi ay ka hadleen ugu dambeyn waxa shirka markuu uu dhamaaday soo gabagabeeyay sheegayna ujeedka uu shirka ahaa iyo sida ay markaasi u doonayaan in ay markaasi u dardargeliyaan kubadda cagta iyo sidoo kale xulka degmada Balcad gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada Balcad Abees Cali Daahir Abees Kabila oo ka warbixiyay si ay markaasi u doonayaan in ay sare ugu qaadaan kubadda cagta marka labaad waxaan marcelinayaa Badge Sports muuqaalo fiican oo dhinaca isboortiga iyo waxyaabaha horumarka bulshada soo jeedisa waana ku ammaanihiin in la helo TV iyo kanaal noocaas oo kale ah maadaama dhalinyaradeena ay boqolkiiba 70 dhalinyaro isboortiga jecel rajo marka waa ku mahadcelinayaa inay kaalin ka qaataan horumarka isboortiga degmada caawa oo taariikhda tahay 31 September waxaa shir وخوان حفيزك حرير كوبات عقد دegmada Balcad shirkaas oo ahaa qaabkii isku jahay la xulkii degmada iyo xiriirka isboortiga degmada waa wuxuu sameeyay xul oo degmo ah oo tijaabo ah waxaan rajaynaynaa duuleera Jimcaha soo socoto inaan la ciyaarno dhigeena degmada Yakshiid marka insha Allah taala xulkana waa diyaarsan yahay wixii kale oo jiran insha Allah maanta saa arka doonaa duuleera laakiin kulankaas aan soo wajahan caaw shirkeen taas oo ku saabsanaa shirkaas waa caaw la qabtay oo sheegtay in lagu sameeyay xulkaas ma sii socon doonaa oo mise halkaas kulan ay ciyaari doonaan kadib waa insha Allah taala xulka waxaan rajaynayaa duuleera intaan noolnahay inuu xulkan taagnaado ciyaaraanada qaar waxa uu sheegnay in xulkan uu jiraayo marka وتاجناها دولايرة وحلاس ملها حلك الدكمة مثل لها واي أنا قاعد ماشي كبحنا حتى عرنا دولايرة إنه صاص تاجناها إن شاء الله تعالى. ugu dambeeyay waxa sare oo ka isboortis laga dareemaya degmada Balcad iyo nawaaxi geeda waxaana mar walba iska kaashanaya gudoomiyaha degmada Balcad maamulka degmada Balcad iyo xiriirka kubadda cagta degmada Balcad anigu waa Jilaani Cali Macu Kamara halkaan naga daawanaysaan waa Rajo Sports Balcad kaamiradan quruxda badan waxa inoo duubaya saaxiibkayga Janga inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa anigu Kamaru ah oo idin dhahaya Soomaaliya Sports